قبل يهو سيدي وي أما قبل يهو سيدي واي maxamed ibraahim warsame oo ku magac dheer hadraawi waa mid ka mid ah tirarka fanka Soomaalida waa abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo gabayada. maxamed waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco sanadkii 1943 waxa uu ka dhashay qoys ka koobnaa 9 caruur ah, hal gabar iyo 8 wiil. maxamed ibraahim markii uu 10 jir ahaa waxa uu aaday dalka Yemen isagoo waqtiga laga bilaabo la noolaa adeerkiis. halkaas ayuu ka galay dugsi iyadoo magaca uu ku caan baxay ee hadraawi uu halka uga baxay waraysi uu bixiyay ayuuna ku sheegay magacu inuu asal ahaan Abu Hadra oo macalinkiisa dugsiga uu bixiyay uu ka soo jeedo maadaama uu ahaa nin ardayda aad ugu sheekeeya misana ka qoslaya. markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macalin ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka Yemen. markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay gobolada waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen, hadraawi Yemen uu ka soo tagay isagoo dib uga soo laabtay dalkiisii hooyo gaar ahaan magaalada madaxda Muqdisho. ummad yahay inaga dictatorka abuura dictatorka iyo kale taliska inaga sameeyna markaynu sameeyno ee qarabayno ee hubayno ee u dhamayno ee u dabeedba isagoo galka seefta kala baxo ee wax gumaaday cagta wax mariyo aynu hadhow taala Allah Soomaaliarkin waa loo sacabinaya waa loo mashxaradayaa iyadoo uu qaldan yahay isagoo halkaas mar kale noloshiisa ka bilaabay wuxuu ku biiray jaamacadda ummadda ka qalin jabiyay oo isla iyadana uu bara ka noqday iyadoo ay barbar socotay inuu la shaqeynayay wasaaradda warfaafinta iyo raadiyo Muqdisho. hadraawi oo noqday gabiya iyo heeso curiye caan ka ah bulshada dhexdeeda wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda maamulkii militariga ahaa ee uu mataraha u hayay Generaal Maxamed Siyaad Barre. heeso iyo gabayo ka soo horjeeday maamulkii dalka uu tiriyay darteed ayaa sababtay in xabsiga loo taxaabo waxaana lagu xiray magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 90 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka jirta magaalada madaxda gobolka Bay ee Baydhabo. wuxuuna xabsiga ku jiray muddo 5 sano laga soo bilaabo 1973 ilaa 1978. hadraawi markii uu xabsiga ka soo baxay wuxuu ka mid noqday maamulka Akaademiyadda Cilmiga iyo Fanka Suugaanta. xilliyadii bilowga burburka iyo dagaaladii sokeeye hadraawi wuxuu aaday Ingiriiska isagoo kadib safar ku soo maray inta badan wadamada Yurub iyo Mareykanba. wuxuuna ka qayb galay xaflado faneed lagu dhisay wadamadaas. 1999 ayuu hadraawi ku laabtay magaalada Hargeysa. heesaha ugu caansan ee lagu xasuusto hadraawi waxaa ka mid ah Balad Weyn oo uu qaaday fanaanka Xasan Aadan Samatar, Hooyo oo uu qaaday Allah u naxariistay fanaankii lagu magacaabi jiray boqorka codka Maxamed Saleebaan Tubec, iyo Jacayl Dhigma lagu qoray oo iyana ay qaaday Allah u naxariistay boqoradii codka Xaliimo Khaliif Cumar Mogool, Sulaykha oo uu qaaday Allah u naxariistay fanaankii Maxamed Nuur Greig iyo kuwo kale badan. qaar ka mid ah heesaha uu sameeyay waxaa lagu turjumay luqado kale. gabayadiisa waxaa ka mid ah Gudgude, Dalaalay, Dabahuwan oo ah gabay aad u dheer kana kooban ilaa 803 amba bayt, silsiladii Siinley oo uu qayb ka ahaa iyo kuwo kale badan. maxamed ibraahim warsame hadraawi sanadkii 2012 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Prince Class Fund oo uu ku mutaystay gabayada iyo heesaha waxtarka leh ee uu bulshada u sameeyay. maxamed hadraawi sidoo kale waxaa laga qoray buugaag ay ka mid yahaayeen buugga Halka Haleel iyo Halkaraan. buugaagtaas oo lagu qoray afka Soomaaliga. taariikhda kooban ee maxamed ibraahim warsame hadraawi intaas ayaan ku soo koobinaa. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo Ridwaan ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo is aragtida ma xiisan nabadgelyo.